السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركز لي عشرانتين امتحانها هاي نوجا بحي دكسيده هورسيد رمضان كريم باذن الله هاي بشو وحويان 720 بشي افراد 2020 وعشر فصلka sideedaad cutubkuna waa cutubkii u dambeeyay buugga fasalka sideedaad oo cutubkii lixaad wuxuu ka warramayaa trigonometriga wuxuu isagu ka warramayaa marka lagu dhaahdo qeex waxa weeyaan waa sidii loo soo saari lahaa saddex xagalko kaliya tuu ka warramaa waxa la yiraahdo trigonometriga cutubkaasi gabigiisaba marka qaybtan dugsiga hoose marka la joogo dugsiga sare in isagoo fara badan ku arkeenaay dugsiga hoose marka la joogo waxaan doonayaa inaad barato horta trigonometriga muxuu ka hadlaa saddex xagalka wuxuu ka hadlaa saddex xagalka dhinacyadiisa maqan iyo xaglihiisa maqan sidii loo soo saari lahaa iyo xiriirka ka dhaxeeya xaglihiisa iyo dhinacyadiisa intaas ka warrama ta kale markaynu inagu dugsiga hoose joogno waxaynu eegaynaa saddex xagalka quman baynu saddex xagalada ka sii eegaynaa saddex xagalka quman qaybta trigonometriga ka hadashaa waxa weeyaan aragtida Pythagoras iyo saamiyada trigonometriga ama trigonometric ratioska ama iyo aragtida Pythagoras waliba iyo saamiyada trigonometriga waa kuwan iyagu waxay ka hadlayaan saddex xagalka quman dhinaca ugu dheer waxaanu bixinaynaa shakaal ama xarafka c baynu qaadanaynaa dhinaca yar gaaban waxaanu bixinaynaa horjeeda xarafka b baynu qaadanaynaa dhinacan kale aan dhinaca ka gaaban ka dheer u dheerna ka gaaban waxaanu bixinaynaa deris oo waxaanu bixinaynaa xarafka a hadaba Pythagoras muxuu ku leeyahay Pythagoras wuxuu leeyahay dhinaca ugu dheer oo la laba jibaaray wuxuu kuula mid yahay dhinaca ugu dheer oo shakaalka oo la laba jibaaray wuxuu kuula mid yahay dhinaca ugu gaaban oo la laba jibaaray oo loo geeyay dhinaca ugu dhinacan derisko la laba jibaaray oo loo geeyay dhinaca kale horjeedka oo isna la laba jibaaray si kale hadaan idhaahdo dhinaca ugu dheer oo la laba jibaaray wuxuu kuula mid yahay labada dhinac kale oo mid walba la laba jibaaro la isu geeyay intaas oo aragtida Pythagoras ka hadlaysa marka siida hadii la raadinayo sidan baa lagu soo saari eeda hadii lagu diro ka waran eeda hadii la doonayo waxa leedahay bida laba jibaaran ba iska soo wareejinaysa waxa noqonaysa sidan bay u qornayd laba jibaaran oo loo geeyay b laba jibaaran bidaas iska soo wareejinaysa hadaad eeda laba jibaaran doonayso hay eedii laba jibaarneed kaligeed ba xagga laga imanaya siidan laba jibaaran halkan bay ku sii taalay bidaas markay u soo wareegtana maxay qaadanaysaa ka jar bay qaadanaysaa soo taasay eedina saasay noqonaysaa qaaciidadeedu hadaan doonayno inaynu soo saarno bida inaynu soo saarno eedaas uma iska wareejinayna marka bidoo laba jibaaran waxay la mid tahay siidaas mar walba halkeeda iska taalaay bidaas oo eedaasoo laba jibaaran sidoo laba jibaaran laga jaray eedaasoo laba jibaaran bay iyaduna kula mid noqon saasad ku soo saaraysaa marka hadii a lagu diro sidan bay ku soo bixi b hadii lagu diro sidan bay ku soo bixi c hadii lagu diro sidan bay ku soo bixi hay taas waa taa hadaba aan eegno tusaalaha raadi dhinaca maqan ee saddex xagalkan quman ba halkan laynagu siiyay waa saddex xagal quman dhinaca waxa layna siiyay 6 mitir dhinacana 8 mitir dhinacii ugu dheeraa shakaalkana waa layna weydiiyo waa c hadii lagu weydiiyo dhinacii ugu dheeraa weeyaan soo horta qaacidadii baad qoranaysaa waxa kula mid tahay c laba jibaaran waxa kula mid tahay a laba jibaaran oo loo geeyay b laba jibaaran c marka waa layna weydiiyay marka waa soo qaadanayna sidaas soo steena halka lagu bedelena 6 mitir laakiin mitirku hanoo dambeeyay 6 aan ku bedelo b-dana waxaan ku bedelayaa 8 laakiin way laba jibaarneed biidu hay si laba jibaaran waxa kula mid tahay 6 hadda laba jeer isku dhufato waa maxay waa 6 iyo 30 8 hadda laba jeer isku dhufatana 4 iyo 60 hay si laba jibaaran marka waxa kula mid tahay labada hadda isu geyso waxa weeyaan 100 inta markaad hesho c laba jibaaran leeyno dirinay inaga waxa leeyna weydiiyay si aan laba jibaarka meesha uga saaro hore waxaan u soo barannay inaynu dhinac walba ka saarayno waxa la yiraahdo xidid laba jibaarka iyo laba jibaarkaas isla baxay halka c kaliya taa inoo soo hadhaysa hadaad xididka ka saarto 100na wuxuu kuula mid yahay 10 mitir marka hadhow aan raaciyay la kuwii horeba mitir baa la socday hadaba su'aasha isweydiinta li waxa weeyaan oo macallin oo halka markaad ka saarayso dhinac walba aad laba jibaarka saarto maxaad halka plus iyo minus ku raacin weeyday ila markaynu haysanay intan x square waxay kuula mid tahay 100 hadii xid laba jibaarka xagana laga saaro plus or minus baa la raacin jiray maxaa tan u diiday tan waxa u diiday tan waa dherer bay inoo tilmaamaysaa sida halka ilaa halkaas waa dherer mar haday dherer tahayna dheerarka hadii lagu dhulka mitir
mitri ma odhanaysid minus 20 ma odhanaysid 20 mitri baad odhanaysaa sababtaas aan uga deynaya marka minuska 10 ku xigay inta isugu iman doono ardayda fasalka 8 waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Horseed Schools